السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمركلة السوداء وده أدي هذا ومهتسنتهن ما أنت واحد لبيت وكبش كوباد جانوري سنة كلبضة كون إيا شان يا لباتنك وقال كانوا حربانا ندي كل وداقو محاكا سو كردي دببكي حوغنا كهل عيي قيبا كميدا مقالة لوس أنجلس قبولكا كاليفورنيا دببكا قاركود انت بدن والا حكميي كوا كلنا والا حكمين لا يحي سببتو محيطهي ودوميها قبولكا يوليبا دوقة مقالة لوس أنجلس oo cadaadis xoogan uu saaran yahay waxa hadlay oo wareysi bixiyay gudoomiyaha gobolka Gavin Newsom iyo eedeynaya ayuu safarta ku fiiqaya maadaama culays fara badan uu isaga saaran yahay dhimasho fara badan oo ka jirta dabkaasi uu sababay sidoo kalena dad fara badan oo hadda digniino cusub la siinayo inay isaga baxaan meelaha dabku ku soo wajahan yahay maxay tahay sababaha dababka qaarkood loo xakameyn la yahay sidoo kale waan idila wadaagaya qaar kamid ah shirkadaha caymiska hantida ama guryaha dadka ay caymiska ay geliyaan oo iyaguna sidoo kale shirkadahaasi qaarkood labadii sano ee u dambeysay gobolka California ay isaga baxayeen inta badan guryahan gubtayna aysan wax caymis aysan lahayn sababtu maxay tahayna sidoo kale waan idila wadaagaya baarihii qaaska ah ee madax banaana ee wasaaradda cadaaladda ay u xil saartay labadii kiis ee Trump lagu baareeyay tii faragelinta doorashada iyo dokumentiyadii sirta uu qaatay markii aqalka cad uu ka tagay oo riboodkiisii markii uu soo diyaariyay kadib shalay ku dhawaaqay in uu iscasilay Trump inta uu Salman ka hor ayuu rabaa inuu meesha ka baxo maxaa yeelay Trump wuxuu yiri daqiiqad iguma qaadanayso inaan casilo oo aan fire gareeyo arrintaasina waa idin socodsiinaya balse marka hore aan ku bilaabo gobolka California maalintii shanaad ayaa dabab xoogan oo ka holcaya hareeraha magaalada Los Angeles la xakameyn la yahay ilaa hadda wararka soo baxaya waxay sheegayaan 16 qof inay dhinteen 13 qofna la laayahay 71,000 oo qofna ay yihiin koronto la'aan 150,000 oo qof ayaa lagu amray inay guryahooda isaga baxaan ilaa iyo 12,000 oo guri iyo dhismo kala duwan ayaa dabkan ilaa iyo hadda uu baabi'iyo dambasta ka dhigay sidoo kalena waxaa jirta in dad ka badan 20 qof la xiray dadkaas waxay yihiin guryihii gubtay ayay waxay u aadeen inay bilaleeqaystaan guryahaasi guryo dad lacag la ay lahaayeen hantila ayay ahayd marka waxyaabo dahab iyo waxyaabo jewelry waxyaabaas ama ugu tagtaan ay istahayeen ciidamada ilaalada qaranka oo 16 kuna ayaa gudoomiyaha gobolka Gavin Newsom activate gareeyay oo hadda ku sugan meelihii gubtay waxayna ka ilaalinayaan dadku in ay bilaleeqaystaan sidoo kalena dhibaatooyin fara badan ayaa jira oo hadda baaritaano kala duwan ay ku socdaan dabkan qadabka qaarkood waxa loo maleynayaa in dad ay bilaabeen arintaasi hadda ATF-ta mas'uuliyiin isugu jirta gobolka California dowladda federaalka ayaa hadda arintaasi baaritaan ku wada guddi ayaa loo saaray bal soo ogaada dabkan ma dad ayaa bilaabay mase kaligii ayuu iska bilowday sidoo kalena maxaa sababay in meelihii biyaha kooxaha dabdamiska ay ka qaadan lahaayeen oo hareeraha wadooyinka tubooyinka fire hydrant la yiraahdo sababta biyo looga waayay maxay tahay sidoo kale baaritaan ayaa arintaasina ku socdo meelo kale waxaa jira water reservoir la yiraahdo meelaha biyaha lagu kaydiyo qaarkood waa ay marnaayeen waxa la leeyahay dib u dayactir ayaa lagu sameeyay arintaasi nafteeda waxay keentay dhibaato marka dabkan sababta loo xakameyn la yahay waxay tahay in duufaano xoogan ay jiraan biyana sidoo kale la laayahay laba diyaarad oo waxaa jiro diyaaradaha biyaha soo qaada oo dowladda Canada ay ugu deeqday gobolkaasi mid kamidana waxa ku dhacday diyaarad drone waxa sharci darro ah oo waliba dambi ah in marka active oo fire oo jira dab holcaya oo kooxaha dabdamiskana ay ku mashquulsan yihiin hawadaasi waa ka mamnuuc in qofku diyaarad drone uu ku duuliyo marka diyaaradii drone taheedna waa la helay diyaaradana dhaawac soo gaaray waatan hadda garab ayaa dhaawac ka soo gaaray waa in la bedelo ayaa leeyahay ma bari isniinta ka horna ma shaqo gali karto 2 maalmood waliba xilli loo baahnaa ayaa 2 maalmood hadda diyaaradaasi ay fadhisaa marka qofkii diyaaradaasi drone iska lahaa hadii la soo helo xabsi ayuu mutaysan karaa marka dhowr dab oo kala duwan ayaa magaalada Los Angeles hareeraheeda ka holcaya sida sawirkan aad ka aragtaan laakiin labada dab ee ugu daran waa dabka la yiraahdo Palisade Fire oo ilaa hadda 23,000 oo ekar ka badan ay ku kubteen isla markaana 11% ayaa ilaa hadda la xakameeyay halka 100% marka 11% marka la xakameeyay arintaas waxay tahay dabkaasi wali waa la xakameyn layaa sababtuna waxay tahay dab hadii la afuufayo ama uu damaya dabeel ayaa
afuufaysa dabkan wuuba sii faafaya meelo cusub ayay dabayshu sii geynaysaa marka dabkan aad ayuu usii holcayaa dabka kalena wuxuu yahay dabka la yidhahdo Eden fire waxaana dabkaasi ilaa iyo hadda la xakameeyey 15 boqolkiiba 14,000 oo ekar ayuuna sidoo kale dabkaasi ilaa iyo hadda uu gubay marka dababka ilaa hadda sida aadka loo xakameeyey waxaa kamid ah Kenneth fire oo ilaa iyo 1,000 ekar gubay 90 boqolkiiba waa la xakameeyey dabka kale oo isagana la yiraahdo Hearst fire 76 boqolkiiba waa la xakameeyey marka dhowr dab oo ilaa iyo 6 dab oo kala duwan ayaa ugu waaweyn waa Palisade fire Kenneth fire Argent fire Lydia fire Hearst fire Eden fire intaasi dab ayaa waxay yihiin dababka ugu waaweyn oo ilaa iyo hadda holcaya qaarkoodna intooda badan la xakameeyey kuwa kalena la xakameyn la yahay marka halkaasi ayaa xaaladdu maraysaa Trump talaadadii namarow shir jaraa'id qabanayay waxa uu markii hadalka uu gabagabeynayay uu ka daba tuuray wuxuu yiri wada hadallada maxaabiis isweydaarsiga Xamaas Israa'iil ma doonayeen inay carqaladeen laakiin 20 January ka hor inta aanan xilka la ii dhaarin haddii la soo deyn waayo ay Xamaas soo deyn wayso maxaabiistaasi bariga dhaxo oo idil wadada amaba albaabada jaxiimada ayaan ku furaya isla maalintaasi waa maalinta dabka uu California ka qarxay marka amar ilaahay hanjabaadii uu bariga dhexe ugu hanjabayay hadda Mareykanka gudihiisa gaar ahaan California ayaa albaabadii jaxiimada ay ku furan yihiin isla markaana dabkooda la xakameyn la yahay sida muuqata marka hadda gudoomiyaha gobolka Gavin Newsom iyo maayarka magaalada Los Angeles Karen Bass labadaba cadaadis ayaa saaran Gavin Newsom oo la hadlay NBC saaka wareystay 10 daqiiqo bixiyay waxa la weydiiyay sababaha biyaha looga laayahay meelihii kooxaha dabdamiska ay dabka ka qaadan lahaayeen iyo sidoo kalena arintan yaa lagu eedeynaya waa uu diiday inuu cid farta ku fiiqo xitaa 2 maalmood ka hor waxa la arkay isagoo meelaha dabka mid kamid ah kormeeraya in haweeney gurigeeda gubtay ay ku soo carartay tiri governor gudoomiye sidee arintan ku dhacday markaasuu wuxuu yiri waan eegaynaa sida arintan ay ku dhacday waxay tiri mar kale arintan ma dhici doontaa sideese looga hortagaya wuxuu yiri howlahaas waan wadnaa xitaa telefonkiisa ayuu tusoo xiriir madaxweyne Joe Biden ayaa qadkii ugu jiro oo aan hadda la hadlaya marka si toos ah ayay dadku ay ula hadleen marka hadda dadkii waa guryo la'aan waa qaxooti hadda parking lot kan aad aragtaan dadkii ayaa donation soo diraya deeqo kala duwan dhar cunto maadaama dadkii dharkooda xitaa ay ka soo carareen wixii ay gacanta ku soo qaadan kareen ilmahooda iyo afartooshey la soo carareen cuntana ma haystaan goobihii marka hay'adda Lanqeyrta Cas ayaa waxay furtay kaniisadihii meelihii jimka haddii iskuulla badbaaday ay jiraan halkaas ayaa marka dadkii guryo u ah oo hadda waa qaxooti dadka hantida waxa laga yaabaa guryo kale inay gobollo kale ku leeyaan ama hoteelo ay degayaan oo lacagtooda iska bixin karaan laakiin dad waxaa jira aan hoteelo degi karin marka waa qaxooti arintii Gaza ka jirtay hadda waxay ka jirtaa California sidoo kalena Gavin Newsom asaas arintaas ayaa lagu eedeynay asigii Trump waa ku is eedeynay 9 milyan oo qof ayaa hadda digniino la siiyo Los Angeles iyo sidoo kale Ventura County labadaasi degmo ku sugan oo la yiri waa inaad heegan ku jirtaan marka fariinto ay soo dhacdo la yiraahdo carara waa inaad carartaan marka arintaasina sidoo kale waa ay ka taagan tahay magaalada gobolka California marka waxaan ognahay guryaha caymis ayaa la geliyaa ilaa iyo 7 kamid ah 12 shirkadood oo kala duwan ayaa California guryaha caymiska gelin jirtay 7 kamid ah waa ay isaga baxeen oo waxay yiraahdeen ma doonayno amaba waa ay hakiyeen ama gabi ahaanba waa ay xadideenba in wax caymisa ay guryahaasi dadka degan ay siiyaan siyaasadahooda 2023 iyo 24 sababtuna waxay tahay hadba shirkadda State Farm oo ugu weyn 22% ay gobolka California dadka guryaha caymis gelin jirtay hadda waxay sheegtay in ilaa iyo 30,000 oo guri ay siyaasadoodii gabi ahaanba ay joojiyeen oo wax caymis aysan siinin 69%na guryahaasi waxay ku yaalaan Palisade sababtuna waxay tahay dababkan waa ay ku soo laablaabtaan gobolka California sanad kasta marka shirkadii waxay leeyihiin lacagteen iyo dhan guri marka gubanaya sanad kasta lacag kuma bixin karno sidaa darteed California Florida kalena waxaa jirta sidoo kale in duufaano ama dabaylaha dhinaca badda ka yimaada ay qaar kamid ah shirkadaha caymiska isaga carareen oo iyaguna sanad kasta dhacaya marka sanad kasta ma jirto shirkad doonaysa in ay guri intaasoo milyana ay dhisto marka waxay leeyihiin wax siyaasad caymis ay ma siin karno guryihiina ama hantidiina sidaa darteed ay u joojiyeen amaba ay xadideen dadka ay guryaha caymiska ay siin jireen intaas haddii arrimaha dabka aan uga gudbo Jack Smith baarihii qaaska ee madax bannaan ee wasaaradda cadaaladda dhamaadkii sanadkii 2022 ay u magacaawday in uu soo baaro labadii kiis Trump ku lug lahaa tii faragelinta doorashada ee magaalada Washington DC markii taageerayaashiisu
ay weerareen aqalka Koongareeska January 6 afar sano ka hor iyo tii dukumentiyadii sirta oo Trump hore usii qaatay markii xilka uu ka degay 20 January 2021 oo qasrigiisa Mar-a-Lago geystay FBI-duna Agosto sanadkii 2022 intay baareen dukumentiyada ay kasoo heleen iyagoo meel suuli ah qolal iyo meelo kala duwan iska yaalo meelo bannaan xitaa dad ay arkeen la leeyahay ayaa ugu dambeyntii shalay waxa ku dhawaaqay inuu iscasilay wasaaradda cadaaladda qoraal ay soo saartay waxay tiri Jack Smith baarihii qaaska shaqadiisii waa u dhameystay reportkiisii sirta ahayna waa uu soo gudbiyey oo waxa uu soo gudbiyey January 7deedii isla markaana 10kii bisha oo jimcihii ahayd ayuu iscasilay Trump hore waxa uu inta ololaha uu ku jiray uu yiri haddii aan soo laabto oo xilka marka la ii dhaariyo sakana iguma qaadanaysa inaan casilo oo shaqadan ka fire gareeyo ayuu yiri marka Jack Smith ugu dambeyntii waa uu iscasilay iyadoo sidoo kalena hadda reportka uu soo diyaariyay Trump teamkiisa dhinaca sharciga ay yiraahdeen waa in aan la soo bandhigin oo maxkamadda ay u gudbiyaan laakiin waxa la filayaa wasaaradda cadaaladda reportkii uu soo diyaariyay Jack Smith in maalinta beriyaha iyo sidoo kale toddobaadkan soo socdaba in ay soo bandhigto wasaaradda Trump soo magacaabana sidoo kalena laga bilaabo maalinta beriyaha aqalka sanadka waxay bilaabi doonaan inay xaqiijiyaan waxa laga yaabaa wasiirada qaarkood inay diidi doonaan haddii maadaama sanadka aqlabiyadiisa hadda Republicanku ay leeyihiin 53 dimuqraadiyiintuna 47 ay leeyihiin waa laga yaabaa in la wada ansixiyo golahaasi wasiirada Trumpna waxa uu yiri waxaan doonayaa si degdeg ah in lagu ansixiyo isla markaana si shaqadooda ay horay uga bilaabaan golaha wasiirada uu Trump soo magacaabo arki doona sidoo kale waxyaabaha ka soo kordha aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waro